madaxweynaha dalka ruushka oo khudbad dheer oo dhinacyo fara badan taabanaysa soo jeedshay isla mar ahaantaasna madaxweynaha dalka turkiga ammaan kala duldhacay khudbadaas dhinacyada badan taabanaysa ayaa qodobka koowaad ee barnaamijkeena caawa noqonaya dagaalkii ruushka iyo ukraine u dhexeeyey oo maalmahan aanan ka warraminin ayaa weji cusub galay talo wejigaas muxuu yahay waanu dul istaagi doonaa qodobkaas ruushka oo asaga laftigiisu security councilka dacwo geeyey yidhi waanu ku khasbanahay dacwadan inaanu geyno ayaa iyaduna aanu dul istaagi doonaa waa falanqaynta siyaasadda caalamka brit somali t v jimco wanaagsan ayaanu leenahay meel kastoo aad dunida ka joogtaan ilaahay mahadaka gaadho inuu soo horfeysiya annagoo kulligan caafimaad qabna soo dhawaada si gobonimada idiin soo dhaweynaynaa haddaadan brit somali t v aysan horey kuugu rukunayn waxaan kaa codsanayna inaad rukumatid si aynu hawada ugu saaxiibno isla mar ahaantaana barnaamijyadaanu halkan soo gelino qofka ugu horreeya ee markaad daawada aad noqotid intaa kadib waxaan jeclahay si diiran ay soo dhaweysaan injineerka oo qodobadaan oo dhan noo soo xuraabiyey injineer aad baan kusoo dhaweynayaa si diiran aad iyo aad u mahadsantaha cabdixaamid oo ku salaamaya adiga tiimka brit somali t v salaan kaliya laaba oo diiran iyo kooxda mataqaanaa runtii caalamka dhan naga daawata aan maaragtay aad iyo aad runtii usoo dhaweynaya aadna u jecelahay soo dhawaadaan leeyahay injineer jacaylkaas baan kusoo xusustay qoraalladana soo gaara markaad aragtid haddaad wax yar soo daada waxay leeyihin injineerkii meeyey iskuulkeeni meeyey lagama sheekay karo dadka soomaaliyeed waa dad wanaagga jecel horumarka barnaamijka ka dhex arkeen sida quruxda badan balansiga leh isku dheelitiran markaas wax kula qaynaysa everyday waa iskuulay injineer aanu ku durdurina haddii ilaha yidhaahdo putin khudbadii ugu dheerayd ayuu soo jeedshay baa la yidhi tan iyo intii uu ku duulay dalka ukraine khudbadaan oo muddo dheer socotay meelo kala duwana taabanaysay maxay gundhiga fariintiisu ahayd maanta soo dhawow injineer cabdixaafidow fadhiinta gundhigeedaba aan ku horreeyo marka ugu horreysaba gundhigu wuxuu yahay putin wuxuu ka hadlay in reer galbeedku bilxaqiiqatan ay ku cayaarayaan dadka reer ukraine cayaartaasoo ah cayaar aad iyo aad u foolxumo badan wuxuu ku tilmaamay dirty game wuxuu ku tilmaamay cayaar mataqaanaa noloshooda taabanaysa oo khatar aad iyo aad u weynle ah wuxuu ku tilmaamay mid dhiig badan uu ku daadanayo kuna daatay wuxuu ka dhigay oo u muujiyey dadka in runtii reer galbeedku ay ku cayaarayaan kubad reer ukraine ee aanay marnaba ka jawaabaynin baahida ay ukraine qabto iyo waxa ay mataqaanaa danta ugu jirto waddanka reer ukraine ruushku wuxuu kalou sheegay putin qodobkaas uu raaciyey maray noqotaba maraykanka iyo xulufadiisu waxay ku qasban yihiin inay nala fadhiistaan maray noqotaba taas meel ay uga weecanayaan ma laha fariimo kala duwanna waa diray putin maanta khudbadiisu khudbad aad iyo aad u dheerna waa ahayd runtii reer galbeedka maruu runtii fariin u dirayna wuxuu sheegay waxaa indhatiray buu yidhi waddamada reer galbeedka waxaa indhatiray gumaysigii ay ummadaha caalamka gumaysteen oy u taliyeen ayaa indhatirtay oo aragtidii iyo xaqiiqada dhulka taalla ka qarisay tiyo ay doonayaan buu yidhi inay caalamka saas u hayaan oo waddankay rabaanna yidhaahdaan saaxiib wanaagsan baa tahay kay rabaanna ay yidhaahdaan yuusan meesha ka kicin ee madaxa cagtaha laga saaro waa sida uu putin hadalka u yiri runtiina wuxuu yidhi dunida oo dhanna saas inay ula isticmaalaan ama ula dhaqmaan bay doonayaan laakiin hal bay waa inay ogaadaan buu yidhi putin waa inay ogaadaan uu yidhi dunida inay isbedeshay isbedel ballaaran inuu jiro waa inay ogaadeen in wakti cusub la gelayo oo laga guurayo dollarka laysku gumaysanayo mataqaana dadka maaragtay loo isticmaalayo in dadka lagu cadaadiyo kii la rabana cunaqabatayn lagu saaro kii la rabana la yidhaahdo adigu nin fiican baa tahay dollarkaaga isticmaalo adeego waxa lagu adeeganaya waa dollarka ayuu ku leeyahay putin wuxuu kaloo ka hadlay waddanka turkiga ka hadlay turkiga intaanu soo hadal qaaday laakiin fariin adag buu wuxuu u diray shacabka reer galbeedka putin wuxuu u sheegay shacabka reer galbeedka russia cadow idinma aha buu yidhi marnaba annaga cadow ma aanan u noqon dadka shucuubta reer galbeedka maraykan ha ahaadaan ama jarmal ha ahaadaan ama ingiriis ha ahaadaan marnaba annaga cadow nooma aha
cadowna uma aragno ayagana duulaan kuma nihin waa mid waxa idin duulaanka idinku haya buu yiri markuu shacabka la hadlayay ood u baahantiin inaad maaragtay ka dagaalantaan in mushaarooyinka laydin kordhiyo in dhibaatada idin haysata ee mushaarada kaliya aan ahayn nolosha laydinku adkeeyey ee xagga mataqaan tabarta waxa qiimaha isbixin kara la yahay in aad noloshiina u dagaalantaan saad wadamadiina uga heli lahaydeen xaquuqda aad leedihiin ama adinku aad istaaheshaan qodobka waxaa laga soo haray uu ka hadlay waddanka turkiya runtii wuxuu sheegay inuu madaxweynaha turkiga waa Tayyip Erdogan inuu yahay nin geesiya inuu yahay nin hal adagna yahay laakiin nin la isku hadlayn kara yahay nin danta uu samaynaya ay tahay aysan ka ahayn danta turkiga waxaan ahayn aysan marayn weeye waa ninaan aqbalayn buu yiri waa sida asagoo hadalka u dhigaya in dalal kale loola yimaado ama dana cid kale lagu naaxinayo loola yimaado agtiisa waxaas kama shaqeeyaan wuxuu sheegay inay hadda wadaxaajood fiican u socdo meher fiican maraya oo ah in mataqaanaa turkiga laga dhigo meesha shidaalka ruushka uu ka soo dego ciddii rabtana ay halkaa ka soo maartay daabulato waxaana la sheegayaa shidaalkan kusoo xasuustay cabdixaafidow ayaamahan waxaa la sheegayaa shidaalkii waagi hore ay qaadan jireen reer yurub shidaal ka badan inay ruushka qaataan laakiin qaab kale u qaataan cajiib waxaa la sheegayaa in shidaalkii dhuumaha oo jabnaa inta iska xireen shidaal aad iyo aad u qaali ah oo ruushku leeyahay la ogyahay ruushku leeyahay oo maraakiib lagu soo daabulay inay gataan hadda waana taas qodobka kale u imaan doono laakiin arrintii khudbadiisii intii ugu muhiimsaneed oo soo xooraamiyey intaasay ahayd way dheereed laakiin way soo yargaamiyey haddaad fiirisid khudbadiisa dhinacyo badan bay taabanaysa in badan oo ka mid ah madaxda reer galbeedka neto ayuu aad iyo aad u dhaliilayay ayagu ilaa iyo haatan wax falcelina ama jawaaba oo ay ka soo saareen ma jirtaa mise intuu waagu uga baryay sugiya cabdixaafidow horta waa runta khudbadu dhinacyo badan bay taabanaysay xataa wuxuu ka hadla dagaalkan markuu lahaa maaragtay waddankaas waxaa la geliyey dhibaato aanu ka kaban karin wuxuu waana ku qasba annaga dagaalka dagaalaan dooranay maaha waa midna lala soo doortay nala kula qasbay xagga reer galbeedka haddaan yar eego warkaan war cusub oo weli kulul waayo weli xataa lama cuni karo waa aad u kululyahay waa in la iska qaboojiyo marka waxaan filayaa falcelintu waxay imaanaysaa markuu xoogaa xarfado aan hadalka si kale u dhige marka waa sugaynaa intuu ka xarfanayo hadalka waa hadal kulule cabdixaafid وهاجا إنجنير هذا قلب كان تعود قلب نتعود يا رسول الله هذا ملك صوت جميل كتبتان وإنسول وينا إنجنير دجالكي وجه كلا يا شيء أو حرله معلومة عن دجال كمان نصور منه ملك كلا أفر بدل ما نصور مني برنامج كان لو حب برشة الصومالية تسيا دجال كوكلين عشان برنامج كان هميل بعد سودين أوسم دارنين لكن قيب يرى أو كم وياي أول همين بانو كلا حنا أرمك لو وين الدنيا كده عاي عاول لكن دجالك يا شهر سيء تعالى سيده هو كدوية سولو إنجنير aad u mahadsantahay cabdixaafid mahmaah baa ku bilaabaya soomaaliyeed soomaalidu waxay tiraahdaa bahalka la yidhaha fiinta jirka haya kama qayliye ka soo socdo ka qayliya marka uu roob jiruu da'o ayaa qayladiisa la maqlaa gobollada qaarna cirsanka yeeraaba la yidhaahdaaba marka waxaa la yidhahdaa wuxuu ka qaylaya maaha waxa markaa haye waa waxa soo socda runtii dagaalka qayladiisu waa bilaabatay waxaana qayladaas keenay waxa soo socda waxay runtii u dhowdahayba xataa in lagu qasbanaado in wada xaajood la galo ay qasab ku noqoto dhowr qodob oo aan hadda soo wado aawadood waa qodobka koowaad horta yurub dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba waa dhiig baxday aad bay u dhiig baxday xilligii kacdoonna ku bilaaban lahaayeenna waa soo dhowdahay haddaan dagaalkan wax laga qaban hadda qodobka labaad waxa weeye qaboobihii ama barafkii ayaa hadda karkiisa la dareemayaa durba waa bilaabatay adigu qaboobihii dareenkiis waa bilowdeen qodobka saddexaad wuxuu yahay maraykanka doorashaa ka jirta hadda bisha november ee dhalanaysa doorashadii waxaa bilaabanaysa midtermka arrintu hadda say u eg tahayna waxaa laga yaabaa xisbiga dimuqraadigu in mataqaanaa afka ciidda loo gelsho oo aqalka congresska lagala wareego taas lafteedu waa waxyaabaha uu maaragtay ka cararayay biden
marka uu doonayo inuu sacuudiga iyo ku qasbo wadamada kale inay shidaalkoodu badiyaan isagoo iska indhatiraya kiisa inuu badiyo soo saaristiisa qodobka kale waxay tahay oo la dareemayo waa fiintaa ka hadlaye 300,000 oo kun oo ciidana oo ruush oo tababar hadda ku jira ayaa markuu la filayaa inay goobaha hore dagaalka yimaadaan aagag hor leh oo fara badan oo mataqaanaa dagaalna ay ku furaan ciidamada Ukraine arrintaas lafteeda cabsi weyn baa laga qabaa qodobka kale wuxuu yahay runtii iyada oo ay maaragtay ay laba arrimoba suurtageli waayeen ayaa meesha ku jirta waa midoo ruushka way u suurtoobi goysay inuu horta Ukraine ku durduriyo maantayna wuxuu diyaar u yahay in wada xaajood la fariisto oo asagii baa baryaya wada xaajoodka marka taas waa faktiga dhulka taalla weeye waxaa iyaduna fakti ah oo dhulka taalla wadamadii reer galbeedka oo isu wada tegay oo dhalay inay ku guul daraysteen inay ruushka jilbaha dhulka u dhigaan taas lafteedu waa fakti markii hore qodob ka horreeyay ayaan ku soo qaadanay in ma garanaysaa shidaal fara badan ba ay ka gadanayaan weli lacagtiiba ay weli siinayaan oo mararka qaar waxaa laleeyahay lacagtii hore ruushka kasoo geli jirtay tu ka badanna waa kasoo gashaa suuqa cusub oo uusan marka horeba u jeedinna oo xagga eeshiyahana waaba u furmeen albaabo kala u furmaa laleeyahay waa sidaa maaragtay dad badan oo siyaasadda ka faallooda ay tilmaamayaan marka arrimahaas isku soo duub oo cid walbaba waxay doonaysay u suurtageli waayey iyo qodobada dhowrka ee aan soo sheegnaba waxay muujinayaan in winterkan aan dagaal la gelin balse waan laga shaqeeyo waxaan filayaa Erdogan in shaqa usoo bixi doonto noqonna doono ragga mataqaanaa runtii raxaanta qaybta way ka qaadan doona xataa guux baa laga maqlayaa xagga Congress-ka Maraykanka in ay leeyihiin maaragtay war doorashada intaan la gaarin waan hala bilaabo iyo wada hadal waxaan u malaynayaa dagaalka cabdixaafidow wejigiisu inuu isbedeli doono ama xag xun ha isu bedelo ama xag nabadeed ha isu bedeleen hagaag daawadayaal wixii ka soo baxaa arrimahaas dagaalka iyo wejiyada cusub uu yeelanayo halkan ayaad kala socon doontaan haddii ilaaha yidhaahdo ruushku waxa uu geeyey dacwo security councilka uu yiri waa biyo kaba dhibcaan dacwadan inaan geyno dacwadanu maxay daaran tahay yuusa dacwo ka yahay cabdixaafidow ruushku security councilka ku jira wadamada fiitada la weeye haddana maaragtay qaynuunku sida uu yahay hadday waddan uu dacwo qabo waa inuu security councilka la aado waa hay-adda ugu sarreysa security councilku United Nationka dacwad buu geeyey ambassadorka ruushka u fadhiya meesha dacwad buu geeyey wuxuuna sheegay dacwadan inay tahay mid lagu qasban yahay dacwadan waxay daaran tahay cabdixaafidow hub wuxuu leeyahay waddanka Ukraine Maraykanku wuxuu ku bacrimiyaa oo ku sameeyaa hubka la yidhaahdo biological warfareka oo ah hubabka wax gumaada oo loo yaqaano mataqaanaa sida maaragtay chemicalka sida mataqaanaa atomicada biologicalkuna halistiisa ayuu leeyahay cudurro lagu dagaalamayo waxaa ka mid ahaa xataa oo dadka qaar badan oo aqoon-yahanaha aaminsan yihiin in maaragtay coronaviruska laftiisa uu ahaa hub biologicala oo lagu bacrimiyey laboris lagu bacrimiyey waa sida ay sheegayaan iyagu iyo annagu xaqiiq uma hayno laakiin si kastaba ha ahaato ruushku wuxuu sheegay inuu dacwadan meesha geeyey uu ka codsaday United Nationka in dad dhexdhexaada khubaro dhexdhexaada loo soo diro waddanka Ukraine arrintaasu waxay muujinaysaa cabdixaafidow ruushku inuu xog hayo hadduusan xog hayna ma yiraahdeen hadalkaas runtiina hadda ka horba waad ka hadalay xilli hore sii horreeyey in ruushka uu ku eedeeyey maraykanka in uu labors ay ku yaalaan waddanka Ukraine oo hubkaas lagu sameynayay maraykanku hadda ka hor inkiray laakiin waxaa muuqata arrimahaas inay soo tareen sida ay hadda ugu dhiiradeen markaad eegto ruushku inay soo bandhigaan dacwadda ka geeyaan waa gartay marka dacwaddan haddii maraykankii uu leeyahay annagu laabab meeshaas kuma lihin arrintan sal iyo raad ma lahan isagiina uu leeyahay xog baan hayaa
dadkan dhexdhexaadka oo loo dirayo dad dhexdhexaad ka noqon kara waxaan oo soo xaqiijin karo independent ma yihiin so waa dad la tashkiilin karo oo dhinac ka raran maxaa yeelay ruushka waxaa lagu eedeynayaa in dirty bomb isticmaalaya ukraine buu asagoo ku eedeynayaa anaa la iisoo marayaa buu leeyahay aad bay arrintu u cakarantahay engineer aad iyo aad waxa weeye arrintaas arrin kale ayay ii geynaysaa oo ah dagaalkan ka socda Ukraine horta dunidii waa kala qaybiyey weji cusubna waa u yeelay waa cusubaa dunidoo dhanba u bariyey waxaa muuqata in laba kooxood ay tartiib u samaysmayso koox horta mid qarsoonba maaha waa kooxdan mataqaanaa garanaysaa loo yaqaano NATO iyo ragga iyo wadamada xulufada la ah oo aad iyo aad ula casheeyo aad iyo aad mataqaanaa ay miisaska wada fariistaan kooxdaas warkeedu waa cad yahay iyaga waa alliance dhinaca kale koox waxaa jira cusub hadda samaysmaysa aadna loogu jeedo oo aan qarsoonayn waa Russia waa Iran waa Belarus waa you name it ku soco waa China waxa weeye Kazakhstan runtii wadamadaas ayagana waxay u socdaan inay maaragtay da access noqdaan dagaalkii labaad ayaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh labada kooxood oo loo dagaalamayay waxay ahaayeen the alliance and the access waxay ahaayeen Jarmalka Talyaaniga iyo Japan bay ahaayeen alliance-kuna kooxda kale ayay ahaayeen markii dambe ku guuleysatay waxaa muuqata hadda in exactly ama sida muuqata taas tul lamido inay hadda samaysmayso la kala miirmayo weliba dhinaca accesska ayaan weli soo dhammaystirnayna aan isleeyahay iyada lafteeda waqtiyada soo socota way dhammaystiri doontaa marka taasaa keenaysaba in adag tahay in la helo aan su-aashaada usoo noqda wax dhexdhexaad ah oo runtii la dhihi karo waa labada dhinac waa isku hadlayn karaa aad bay u adag tahay annagoo og hadda ka hor in ruushka uu eedeeyey united nationka ku eedeeyey inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay maaragtay dhinac u leecdo maaragtay qolo kale danahood ku adeegayso ee aan danaha caalamka ka turjumaynin dhexdhexaad waa injineer gabagabadii gunaanadkii waxaan la soconaa khudbadan markuu maanta Putin uu jeedinayay waxaa la yidhi hal saac buu soo daahay dabeecadii afrikaanka miyuu leeyahay aniga waxaan isleeyahay Putin horta waa nin dictatora waa nin maaragta dalka keligiis ka taliya ma aha dadku reer Russia dad xorana ma aha shirkana waxaa lagu qabanayay waddanka ruushka lagu qabanayay magaalada Moscow waxaan anigu isleeyahay dhaqanka dictatorada inay noocaas tahay inkastoo hadda ka hor aan ogeyn waxaa la yidhi hadda ka hor buu Erdogan ka soo daahay hadda Erdogan uu ka aarsadaa la yidhi Putin oo meel taagan oo sugula ninkii ayaa looga jeeday marka waa inaad ogaataa haddaad maaragtay adigu aad wax bilowdo inay adigana ay kugu soo noqon karto oo backlash ay yeelan karto tanise waxay ahayd gurigiisii ahayd baan anigu isleeyahay oo siduu doono uu ka yeelayo ayay aniga ila muuqataa kulle runtii maaragtay ma aha wax kale waa caadada dictatorada dhan baa saasa ayagoo weligaba aad iyo aad uga walwalsan amnigooda ruushka laftiisana xaqiiqatan dad badan baa kacsan oo dagaalka Ukraine raalli ka ahayn waa intaas iyadana meel la ogaadaa waa arrin muhiim ah injineer oo ku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol allah ku sharfo intaan aamin dama kala kulmi doono insha allahu tacaala daawadeen waxaan idin leenahay